waxyaabo qaar intaasaa ku jira marka anaga ka fiican waxaan ku dhawaaqaa maanta laga bilaabo talada Sheekh Cabdulxayi Nasiye iyo barnaamijkan culimada Dalsan TV in aan waxyaabaha dhaqan xumada ah maadaama daawadayaasheena aad u fara badan yihiin aan ka dhaafno oo ka joojino oo aan ku bedelno in dadka la horumariyo in sida isbaafo kale dadka la soo qaado oo noloshooda la bedelo in maxaa la dhahaa wax kale oo horta sheekh waxa ku weydiinaa in dadka laga khasarsiyo su'aalahan hadda waxaa jiro team Durdur Media danahay anaga waxyaabo qosol la soo dhignaa su'aalahan qof wuxuu sameeynaa maanta dhan uu ka khasarsiinaa marka qosolkaas waa wax dambi lama galaayo oo mala sheegay maxaa la akhlaaq dare ma fahamta waa ku jeclahay samwaa iyo waadi waa la soo foodeena arintaas ka war sheekh dabcan waa sababtay su'aalaha ma santahay dadka in laga qosliyo ay farxaan oo qisooyin maxay ahaydey ay ku qoslaan loo sheego yani wax dhiba male oo hadda midalan wadaad tilmaameynay oo ahayd yani dadku inay kulligood digtoonaan maanta dhan ku jiraan ma aha waa in marna digtoono la galo oo wixii shaqo la rabo in la qabtana la qabto marna waa in nasta la galo oo dadku ay farxaan oo qoslaan oo madadaashaan way fiican tahay bas waxaan fiirinaysaa yani waxa la sheegay tan ku bilowna moogtahay kaan rasuulullah sallallahu alayhi wasallam yamzah wuu kaftami jiray wala yaqulu lil haqq xaqu ma sheegi jiray hadda arrinta aan ku bilownay oo kale muuqaalka hore markii laga fiiriyo waa arrin yani kaftan ah laakiin xaqiiqadeeda markii dib loogu noqdo waa arrin xaqiiqi ah oo maxay ahaydey saas ah marka arrimahaas oo kale dadka in laga qosliyo yani barnaamijyo badan oo waxaa jira maanta caalamku waxyaabaha uu aadka ugu baahan yahay waxaa ka mid ah noloshii ayaa horumarka ay gaartay dhinaca kalena humuumteeda iyo dhibaatooyinkeeduna uu la batay yani dad baa kharash badan waxay ku bixiyaan barnaamijyo ah tarfiihi ah oo dadka looga qosliyo يعني تلفزيون بدن أي أنتاس أيضا إسكالة أو دولة أيليهين أو قف أنت لو إماده سؤال لو كذينا أو مرهو كجواب السكر ولا جواب تذكر إذا قص لايان ما راح يباهس أو كلا دب ملأ تاس أيضا لكن تبدأ أنت المامي إنه حاجة عنش حيتابن يصير بلغ هذه رنت أذن كذا من هذا علنا يا داودياش أنا سياس أو كلا أيها وحن لا يهاي ذاتك قف هذه يعني برنامج يعني لغة أركو وحلقات تبانه هايو sida fiican waxay tahay in meeshii arintaas ayada ahayd la abaaro oo yani wax laga qabto marka Dalsan TV ku mahadsan yahay barnaamijkan uu qaban qaabiyo oo ah yani intii banaanka wax laga sheegi lahaa dadku hortooda biyaha loo yani waayahood si caanaha loogu barxay loogu barxo dhalinyaradiina waxna ha loo sheego islaamka iyo fariintiisana meel kasta oo looga baahan yahay ha gasho oo ha la socdo oo dadkii ha loo tago oo wixii ay yani ku khaldan waa dhalinyaro waxa la yiraahdaa 20 jir intii uu geed ka boodo ayuu tala ka boodaa mar waxa loo baahan yahay tala ka boodkana in la celiyo oo la talada ka boodin geed inuu ka boodin way fiican tahay jirkiisa ku dhismaayo oo waa qayb kamid ah yani madadaalada marka in la jamciyo labadii ama soo shaqadu qabtay waxa kamid ah runtan aad ugu amaanan yahay loona baahan yahay dhalinyarada kalena inay saas oo kala qaataan doorka in wiil dhalinyaro ah ama wiilal dhalinyaro ah oo saaciday madadaaladaas gudaheeda uu ka soo saaray nolol ka wanaagsan tii ay ku jireen oo miis ka soo saaray ajir inta uu leeyahay qofka acmaasha noocaas ah runtii aad iyo aad ay muhiim u tahay oo waxaana hadda uu daliil ah aways baafo inala fadhiya oo markii telefishinka yani Dalsan uu barnaamij ka diyaar aan daawaday meeshii uu yani uu darbijiif ku ahaa oo uu ku dhex jiray dad aan fiicinayn ayaa inta laga soo wado ayaa dharkii laga bedelayaa yani ilaa waxbarasho iyo iskool uu ka fariisto ayaa la wadayaa haddana waa kana ninkan quruxda badan ee labisan ee noloshii qayb ka ah marka qof yani nolosha ka dhacsan oo duruuf adag ku jira qofku ilaahay sabab uga dhigay asaga inuu qof caadi ah noqdo quraanku wuxuu ku tilmaamayaa waman ahyaaha fakaannama ahya an-nas jamii'an naf yani dhibaataysnayd oo ay dhici karto duruuftaas ay ku jirto inay ama ku sii jirto ama ay ku rafaado ama ay ku dhimatada qof ilaahay sabab uu uga dhigo asbaabtii nolosha inuu u diyaariyo oo ay kamid tahay midna waxbarashadii iyo deegaankii iyo cuntadii iyo kaalmeyntii hal qofkii saas oo kale yeelay wuxuu la mid yahay sidii bini aadamka oo dhan asagoo oo nooleeyay sababtuna waxay tahay nafta oo qofka ku jirta dadka oo dhan naftaas oo kale ku jirta marka qofka markay hal naf ay qiimo la yeelan weyso oo inuu dilo ay go'aansado وحال من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا وحلم يهي دادكو دان سوى الدلي بمعنى نفتا قيميها إلى المدام وقرن واي دادك كالو دان سوء كدروا بولا إيها ماهين ساسو كالو بويل لها دانك كالو قفك نيسو أي وناك سناتو
oo naf bini aadama aan badbaadiyo qalbigiisa ay ku soo dhacdo oo tallaabo inuu ku badbaadinayo qaado haddii dadkoo dhan uu awood u leeyahay dadka duruuftaas oo kale ku jira inuu badbaadiyo niyadaas fiican ayuu samayn lahaa marka wuxuu la mid yahay si asoo dadku dhan wada badbaadi taas marka waa dhiirigelin ah haddaad hal qof ay sabab u noqoto hore u sii wad kuwa kale ku dar qofba qof haddii uu badbaadiyo oo maalan duruufta ay ku adkeed bini aadamka dhan wada badbaadayan marka niyatul mu'min khayru min amali aad buu mahadsan yahay loogana mahad celiye ay tahay marka runtii waa arrin aad iyo aad u qiimo badan arrintaas ay sameeyeen waxaan rabaa su'aal inaan ku weydiiyo shaqadaas quruxda badan ee Aweys Baafo oo maanta dhankayga midig fadhiya aad adigu sabab u tahay ka waran haddii aad kaga kaaftoonto howlihii kale kuwii hadda aad tilmaamayso anshaxan aan ku wanaagsanayn laga yaabana dad badan inay kugu cambaarayaan inkastoo kuwa kalena laga yaabo inay kugu dhiirigelinayeenba oo ku dhahayeen waa kala kacsan tahay kalkici hawsha meesha kasii wada si fiican maxaa loola jeedaa kala kacsan kalkici micnaha kalkici waxaa ula jeedaa hawshan kasii wad micnaha waxaa la madadaalo waxaa laga wadaa micnaha qofka maanta adiga haddaa soo balaanistidoo micnaha soo shactireynaya la arko micnaha shactiridiis balaanka lasoo arko kalkici marka lagu dhaha micnaha waxay la mid tahay ninkan balaanka soo bixi adoo lagu dhaha toos ha uu soo balaan baxaa micnaha adiga maanta ninkaan soo shactireynaya le mobile laga arka mugta dadka waxay sii rabaa micnaha toos inay u daabtaan war xasanow ninkaan waa nin shactiro badan oo aad iyo aad shactiro badan meesha kusoo kala kici ninkaan hareeban soo kala kici marka saas oo kale walaalkay xasan mustafa isaaq xasan maamow aanay micnaha isoo balaan bixiyo oo isoo raadi 3 bil anoo raadisteeda oo ku jira 3 bil ka bacdi waa isoo hel waa isoo wada wuxuu dhaanay noloshaas oo waa ka bedelaa waxaas nolol kuuma naqad iskii soo dhaxbax gurigeyga ka mid tahay wixii la cunaa cad wixii la cabaa cad dharkaan waa la gadaa wax adiga kaa maqan mala maanta gurigaan iska joogoodaa iska cun iska cab mar allaal markii adiga oo shaqo la aadayo waa lagu wadaa lagu mareebayo guriga iska joogoodaa marka sidii hadda ani ah waxaa ku joogaa guriga aan ku joogaa alxamdulilah alshukr maanta wax iga maqan madoobey gurigaa iska joogaa waa cunaa waa cabaa aad iyo aadaan u fiican marka xasan toob waxaad tidhaahdaa aada umahadsantahay jazakallah walaalkay xasan toob aad iyo aada umahadsantahay jazakallah alxamdulilah alshukr allahu akbar ma sha allah shukran waayahay xasan toob waxaan rabnaa gabagabada barnaamijkeenaan bal in aan bedelno oo aad weliba tusaale u noqoto balse nasiib wanaag iyo isbedelka ama dhaqanka ama dhaqan wanaagga ama hidaha suuban ama aadaabta guud ay hormuud u noqoto adigu maanta ko iska bilowdo tiraahdo war hadday shalay jireen waxyaabo dhaqan xumo ah oo aad nagu barateen maanta laga bilaabo isbedel ayaan kaga dhawaaqnay halkan waxaan diyaar u nahay intaasoo milyan oo qofood wax badan oo wanaagsanaa jira inaan la wadaago waa mahadsan tahay 80 milyan anagana daawatay 80 milyan eena daawaday micnaheed ma aha in waxyaabo anshax dara ah aan ku keenay laakiin waxaa laga yaabaa 80 milyan dhowr milyan ka mid ah oo aan hadda qiyaasi karin tirada inta ay ka yihiin percentage in ay maxaa la anshax dara ay yihiin laakiin barnaamijkan weydii culimada oo maxaa la dhahaa oo aad adiga daadiinaysa cabdulxayi talooyin muddo badan uuna siinayay oo inta aan ku jirnay ah wax badanna uu noo iftiimiyo ah in xitaa masaajidka laftarkiisa dhala la gey karo qayb la sameyn karo oo lagu madadaalo si aysan hadafkan uu yahay in salaadaas la joogtay marka wax badan ayaa ii bidhaamay maanta laga bilaabo wixii xumaan ahaa oo intaasoo milyan eena daawaday qayb ka mid a aan u sheegnay in aan ka raaligelino laakiin isbedel cusub inaan maanta ku dhawaaqno in aan ku dhawaaqi doono horumaro kala duwan oo maxaa la dhahaa madadaalada habkii aan u wadnay oo ahayn hab badan ayaa dadka loo madadaali karaa keliya ma ahan in maxaa la dhahaa hal dhinaca la ego marka talada waanada sheekha iyo team dalsan t v adaa mahadsantahay waana wax lagu farxo waxaa rabaa marka dadka barnaamijyadaas daawada ama la socday qofka markii maalan uu ballan qaado waxyaabahiina raaligelin uu ka bixiyo inaad loo soo dhoweeyo maxaa yeelay inta adduunyada la joogo bini aadamku wax khalad uu ka dhacay kulli bini aadam khada wa khayrul khadaa'ina tawaabuun yani qofkii khaldama uu soo noqon karaa marka madadaalada qaybteedii xumayd
oo yani anshax xumada ahayd oo dadka qaarkiis saa tilmaamaysa dhaliilo iyo ay usoo jeedinayaan haddii yani intii laga wada hadlay la sameeyey in la joojinayo halkaas waxaa iiga baxay dadkeenu waxay u baahan yihiin si degan oo yani aan qofna lagu fogeyneynin qofna lagu soo dhaweyneyn haddii yani xikmad loo isticmaalo sida qur-aanku in amraayo udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana yani dadka si wanaagsan oo xikmad kugu jirto ula dhaqan markay noqoto in miro fiican la heli karo marka dhalinyarada waan ku bogaadinayaa in yani ay ballan qaadeen arrintaas iyada ah aadna waan ugu faraxsannahay maxaa yeelay qofku markii uu wax wanaaga kula qaato aad in loo soo dhoweeyo oo la farxo ayaa aad u ah ilaahay subxaanahu watacaala oo koonkan iskale qofku markuu yani xumaan ka dhacday uu ka soo noqonayo sida uu ugu farxaayo waxaa la yidhi waxay ka daran tahay ama ka badan tahay qof gaadiid uu watay oo noloshiisa o dhan ay u wada saarantahay intuu ka dhumay haddana helay